دوميه adiga iyo maamulkaagaba waxaan idinka mahad celinaynaa dadaalka aad ugu jirtaan soo celinta bilicdii iyo nabadii iyo deganaanshihii iyo dhismihii kaabayaasha caasimadda jidadku ma aha oo kaliya jidad la marayo laakiin laami kastoo la dhisay wuxuu wataa horumar dhaqaale caafimaad bilic iyo deganaansho ayuu wataa marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin horumarkan joogtada iyo dhismahan jidadka ee joogtada ee aad wadaan waan idinka mahad celinayaa mar kale maalmaha waxaynu ku jirnaa maalmihii xorriyadda iyo midnimada iyo gobonnimada Soomaaliyeed in aynu ku xusno horumar iyo dhismo iyo jidadka noocan oo kala ahi waxay daliil u tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay horu socdaan oo inay dib u noqonin waxaan laabnay beejaj badan iyo taariikh madow oo dalkan soo martay muddo dheer waxaynu u gudubnay oo taas uga gudubnay xal waara nabad Soomaali oo degan xasiloon oo barwaaqa Ilaahay idinkiis waynu isku tashanay waana isku filannahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan uga mahad celinayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir sida ay noola fahmeen ahmiyadda ay leedahay nabadda iyo deganaansho oo furo u ah horumarka haddii deganaansho aysan jirin nabad jirin horumar ma jirayo wax kasta oo wanaagsan waxaa furo u ah horumarka iyo midnimada maanta innaga shacaarkeenu waxa weeye maadaama aan ku jirno maalmihii xorriyadda gobnimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed halku dhageenu waa midnimo iyo horumar oo ay base u tahay nabad si aynu u horumarno waa inaan ilaalino nabadda waa inaan ammaanka ilaashanaa sida ay shacabkeenu ammaanka u ilaashanayaan runtii waxay ku tusinaysaa bisayl aad iyo aad u weyn haddii ay inagu jiraan dadka qaar oo weli taariikhdii madoobayd dib u mililicsanaya oo majeeranaya waxaan leenahay walaalayaal horay aan u soconno taariikhdaas waan iska laabnay taariikhdii khilaafka iyo isqabqabsiga iyo isnaca iyo dagaalka iyo dilka iyo dhiigga iyo faqriga taariikhdaas waa soo aragnay waa soo dhadhaminay meel loo xiisa ma aha waxaynu u gudubnay taariikh kale iyo beej kale oo cusub oo midnimada ka bilaabanaya nabad maraya horumar leh dhismo leh oo ah midkan aynu saaka aan ku naaloonayno halkan u taaganayno caasimadda Muqdisho caasimadda dalka qaranka oo aan ognahay wixii ay soo martay oo aynu markhaati ka nahay waayo badan inay inoo bariyeen ayadoo dhiig ka daadanayo ayadoo dadkeena boqol u dhimanayaan ayadoo kala xiran
ayadoo la isu mari karin ayadoo rajada dadkeenu ay aad iyo aad u hooseyso waxaa ilaahay mahadiisa inaan hadda saaka soo maray jidkaas ayadoo aan jidka la xirin oo aan soo dhex soconay bulshadeena iyo shacabkeena waan ku faraxsanahay inaan tarabuunka wax ogaa taagnayn iyo meelo kaleba oo jaam ka jiray inaan dadka la mid nahay aan dadka la soconno waan ku faraxsanahay inaan ku dhex noolahay bulshadeena waan ku faraxsanahay in aan joogno xilligaas oo aan cabsi jirin oo nabada magaaladani waa nabad looma baahna hub looma baahna hub waaweyn cabsi ma jirto nabad bay magaaladani ku naaloonaysaa shacabkeeduna ku noolaanaya marka ilaahay baa sidaas subxaanahu wa tacaala ina soo gaadhsiiyey saaka ilaahay baan ugu shukrinaynaa waxaynu u jeesanay markaa jidkaas horumarka bilicda aan ilaashanno nadaafadda guddoomiya aan ilaashanno waxoogaa waxaad moodaa in kastoy roobab mihigaanihi ay da'ayaan haddana markaan magaalada fiirino jidadka waa la dhisay guryihii shacabkeenu waa dhisteen alxamdulilaah waa inoo qurqurux badan yihiin korkaa marka la eego laakiin hoosta guddoomiya waxaad moodaa in nadaafadda wax inaga dhiman yihiin marka aynu yeelano dhaqan nadaafadeed oo saxarka ka ilaaliya jidkan suu saaka u qurux badan yahay ayaan rajaynaynaa inuu sidaa u qurux badnaado arrintaa waxaa ammaanadaas waxaa qaadaya guddoomiyaha Dayniile iyo maamulkiisa iyo shacabkiisa marka waxaan rajaynaynaa inay laamigan saa u qurux badnaado oo la ilaaliyo shuruucda in la fuliyo dadka jidka halaynaya in laga qabto hadda waxaan soo maray halkan jidkan oo labadan jid ah oo runtii xataa aan wax jaamihi ka jirin baabuurta waxay iska socotay side ayna iyagu lahayn dhinacaan ku imanaynay ku socdeen dhinaca kalena baabuur ma muuqato xataa ma socoto baabuur kale kay lahaayeen side kay lahaayeen baabuur kama socoto waxaan u baahannahay guddoomiye in magaaladan caasimadda ahi shuruucdeeda ee jidadka shuruucdooda in si fiican loo enforcement loogu sameeyo darawallada la baro shuruucda jidka lagu maro la ganaaxo qofkii ku xadgudba in la ganaaxo oo aan loo ogolaanin marka dee waa horaan sheegay sida ummaduhu u nool yihiin aan u noolaano waxaan u baahannahay inaan shuruuc ku dhex noolaano oo aan noqono dad sharciga ilaaliya oo nidaamka ilaashada waan idinku dheereeyey aad iyo aad baan mar kale ugu hambalyaynayaa guud ahaan shacabka Dayniile waxaan idin leeyahay hambalyo guul baan idin rajaynayaa hambalyo caasimadda hambalyo madaxda caasimadda ugu horeeya guddoomiyuhu waad mahadsantiin